miyaan ka marmaa muqdisho cadday minid qura ka maqnan karaa miyaan ka marmaa muqdisho cadday minid qura ka maqnan karaa ayaguna wax ku ahay maanta ama ha joogaan halkan aan hadda xaadirka ku ahay ama ha maqnaadaan social media qaar aan soo gaarin ha ahaadaan Amen.
أدبان إيدي شحنهاي أدبان يعني ودريمي ما أنت فرحت وحن دريمي رفعت الوقت يعني سواء يعني ما أنت لا يقدر يعني مسكين يومي ما شاء الله sababtoo ah yani soo dhaweyntii wax laga bugan karo maaha waxaan kaloo u mahadcelinayaa saaxiibkayga gudoomiyaha degmada xamar jajab ee asagana lagu martiqaaday halkan sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada isagana jooga jabaal oo jooga isagana dhammaan waxaa kaloo elaboorka igu soo dhaweeyey cabdifitaax shaawi oo isagana si qurux badan igu soo dhaweeyey markaan soo koobo marka يعني وحي ما هذا الأسبوع ما تلاقي أسبوع هنا بناك ما جماعة البلدرنا ما شاء الله سيدنا أنت قبل اكتب ما أكلين أم أنا ما عاونا بحاجة كمان سنتايو وعاونا جرجاري أنا بس ما جرجاري جرجاري البلدرنا Soomaaliyeed ee hadda jirta ma aan dad badan baa isla wuxuu ugu yimid maanta Jubbaland asagoo yani Yurub jiro maqan wuxuu ugu yimid waa dadnimo iyo yani inuu qof walba Soomaaliyeed u tumanayo inuu diyaar u yahay qof walba Soomaaliyeed meel alaala meesha joogay inuu yani garab siiyo wax u qabto waxaana leenahay xilibaan jir oo joog ana dhicin dhammaan shacabkii Soomaaliyeed waa inay jeclahay meel walba joogtaan qof walba Soomaaliyeed u damqanayo wuxuuna diyaar u yahay qof walba Soomaaliyeed meel alaala meesha joogay inuu yani garab siiyo wax u qabto waxaana leenahay xilibaan jir oo joog hana dhicin dhammaan shacabkii Soomaaliyeed waa idin jeclahay meel walba joogtaan haddii aan idin dhaho miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura ka maqnan karaa miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura ka maqnan karaa Muqdisho magaalo Muqdisho ha jirto maamooyinkayga Soomaaliyeed waa idin jeclahay noolaada meel walba joogtaan thank you so much xilbaankan ku soo dhaweynaya sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo waaxda socdaalka iyo immigrationka oo hadda nagala joogo agaasime Cabdiraxmaan Caadle haweenka gobolka Banaadir iyo kuwa degmada Xamar Jajab meediyaha marti sharafta dhalinyarada kulli waxaad ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa xilligan orax kuleelka ayaguna aadan qadeynina saakana aanan mataqaanaa la soo quraacan in loo soo bannaan baxay fanaankiina Soomaaliyeed Maxamed Qadar Ibraahim Keyo waxay tusay calaamadda aad ka tahay magaalada Muqdisho soo dhaweynta ay ku hayaan iyo qalbi samida ay ku hayaan marka anigoo ku hadlaya afkiisa waxaan rabaa inaan mar labaad idinkaga mahadceliyo sidaa u soo dhaweyseen intaa kadib Qadar waxaa lagu xiray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sanadkii hore bishii December dhamaadkeedii ilaahay maadiis muddo maalmo kooban gudahoodna xoriyadiisa dib ay u heleen kuma imaan xoriyadii inuu dib u helo si sahlan ilaahayga weynaayo subxaanahu wa tacaala ay suuro geliyay ayaan u mahadcelinaynaa labo shacabkii Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay xiriggii fanaanka ayagana waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo oo meel walba joogaan iga soo wacay ila garab taagnaay wax allaale iyo wixii ay awoodeen waa ugu mahadcelinaa intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Soomaaliyeed xukuumadda federaalka Soomaaliyeed oo horkacayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Cali Khayre iyo wasaaradda arrimaha dibadda ما لا يشكر الناس لا يشكر الله dadkii qofkan ilaahay ku mahadcelin qofka dadka wax abaalku u galo ku mahadcelin ilaahayna ku mahadceliyo waxaan si gaar ah aan ugu mahadcelinaa wasiirka arrimaha dibadda
أحمد عيسى عود أنا إلوبيد كريم كالنت وكل هاي سيدنت فنان كينا سوماليات iyo asigoo mar walba u taagan dadka ku xiran dibadaha si ugu shaqeynayeen xukuumadan aan mahadcelina shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maasantiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii laba Cabdifataax laba leeyahay Cabdifataax waana la joogaa hadda kaamiradu ka dhuumanaa marayna iyo nin Itoobiya joogo oo leeyahay Cabdifataax aadan Tawfiiq oo har iyo habeen u taagnaa iyo gabdhihii u taagnaay iyo waalidiintii kulli waxaan leeyahay waa maasantiin waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaali baa leh ummadda Soomaaliyeed waa hal qof kasta oo dhibaataysan aan matalna anaga qof kasta oo faraxsan leh waa matalna ma nihin qabiil dhalinyarada wax ay ka caagantaa jiro waxa la yiraahdaa qabiilka dhalinyarada qabiilka waa ka dhalinyarada qabiilka waa ka caagan tahay sidaas ayaan rabaa inay uga caaganaato dhalinyarada Soomaaliyeed ha noolaadaan ummadda Soomaaliyeed ha israacdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh